Salaamullaahi calaykum. Maanta waa idin salaamay asxaabteyda. Maanta talo maxaan rabaa inaan ka hadlo. Maanta wax kale ma rabo inaan ka hadlo. Maanta mowduucii ugu weyn waxaa waaye inaan ka hadlo Soomaalida iyo dilka meeshay kala joogto, iyo diinta iyo dilka waxay ka tiri, iyo halka ay diinta ka joogto dilka. Ayaan rabaa inaan maanta mowduuceena kula fuguro. Marka next 5 minutes waxaa rabaa kula fuguro dilka iyo Soomaalida halku kala joogo. wax yarna aan taabto marka isku soo laabaneynaa qadar yar kadib. maxaad u ilmeynaysaa? waxba waa maxay dhibaatada ku haysataa? iska daa adiga leh ha noqon laygoo kale. okay Isku soo laabasho wanaagsan asxaabteyda. Maanta saan hore kuu sheegay waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaalida iyo dilka. Soomaalida dilku hadda ka hor waxaa qiso u taagnaa laba wiil ayaa banooni dheelaysay. kubadda si loo dheela waa taqaanaa. marka kubaddu sideeda waa cag iyo madow. marka dee waa la isjibinayaa, waa la waa la isciriirinayaa ama dhawac baa la isgaarsiinayaa. ninba ninku ka xog badan yahay banooni markuu qabsado soo rabuu ka yeelayaa. xeerna meesha ma yaalo. marka dare waa ogtihiin marka qaar albitre dhexdana qabsan jirnay. soo markii labadii wiil ilaaha markiis way isdagaaleen. markay isdagaaleen yaa markay mid kale wuxuu leeyahay wallaahi inaan ku dili. ma garate magtaadana waxaa usoo aadaya $1. what does that mean? magtaada $1 ayaa usoo aadayo. bal fiiri xeerka aan ka gaarnay dilka. fiiri intaan ku dilo yaa magtaada $1 ay usoo aadayo. bal fiiri marka dilkii wuxuu noqday aniga haddaan wax dilo it means waxba igama gelin, waa $1 bixinayaa. maxaa laga wada $1 bixinayaa? it means waxaa weeyaan qabiilkaa qaybsanayo waxba aniga iguma soo aadayaan. laakiin ka waran haddii sidaas la mid ahay, diintu ma qabto sidaas. diintu sidaas ma qabto. qofkii qof dilo in la dilo. weliba diinta ilaahay way xarimtay. naf aan banaaneyn dilkeeda way xarimtay. ma garate marka qofkii naf dila naf in loo jaro. qofkii san kaa gooyo sanka in laga gooyo. ma garate qofkii ilkaarid inaa isha ka rido. saasay ballanka ahaa. laakiin hadda waxaa waye dilkii waa ku badaneed. tusaale ahaan wiil abiis la dilay oo wixii loo dila hadaa la isweydiineynin yaa diyaa la siinayaa. diyadu maxaa waaye? diyadu waxaa weeyaan wax xitaa abiis uu ku ilaawi karo lama la siinayo. waxaa loo baahayay aabbaha waxaa ku ilowdo. tusaale ahaan haddii isugu qadarsamaan ka waran aabbahaayoo la dilay, nimankii dilina ay nool yihiin, adigina nimankii dilina ay ilmahooda kaa nolol qurux badan yihiin. ma garatay marka aabbaha waxaa ku ilowdo waa in lagu siiyaa. inkastoo aabbaha aday ilaawi kale laakiin haddana waxaa ku ilowdo waa in lagu siiyaa. sababta dadka u yeelaan waxaa waaye wax kale ma ahan. it means waxaa weeyaan in maxay ahayd aabbaha adiga maxay ahayd wax wanaagsan ku ilowdo because of haddii aad dishay wax ma soo kordhinayso. laakiin haddii adiga xakamayso oo min xitaa aabbaha diyadii saxda ahayd reerkii ka dhintay la siiyo, that's the best answer. laakiin aabbaha waa la dilay, 2 halaadna waa lagu siiyey. marka wax macno ma sameynayso. 2 halaad adiga shaqaysan karo. laakiin waa inaad nacfi aad ku ilowdo heshaa because aabbaha soo laaban maayo. intuu soo laabto aabbaha ilmo kale dhali maayo oo walaal kale heli maysid. so markii haddii aad aabbaha weyso inaad nacfi heshaa. marka sidoo kale waxaa lamid walaalka haddii lagaa dilo booskiisa cid ku buuxinaysa ma lahan. marka waxaan kula talin inkastoo hadda la ilbaxay dhalinyaro hadda aqoon leh soo kacday oo dilku aada u yaryahay. baryahan dambe xoogow dilku nin dilaya ama dhalinyaro dilays xoogo way yar tahay. ma garat way yar tahay. laakiin berigii hore waxay ahayd
kubadil dheelow qof ameed kubadil dheelow qof ameed laakiin hadda alxamdulilah dhalinyaradii well educated waa hadda waxbay soo baranayaan haddii rabaan social media ku mashquulaano oo bedelkii kubadda social media ku mashquulaan tiktok waxaa la garana ku mashquulaan laakiin almiin xitaa saan waa dhaamaysaa dilka horta ha yaraado annagii iyo hadda fixeedi tusaalaan fiiri Ethiopia waa naga badan tahay Kenya waa naga badan tahay aniga isii naafeenayna marka ina isii naafeena ma ahan soo markii waxaan leeyahay dilka bedelkiisii wax kale ha la geliyo maxaa la gelin karaa wax walba wanaagsan warni waxaan kaa tabanayaa miskooda hadalkiimow waxaana kaa tabana waxaa naga samaysay waa iska cafiyey agsii wanaagsan dala niyahow waa iska cafiyey agsii wanaagsan marka ilaahay hana waafajiyo cafiska dilkana ha la yareeyo Soomaali maanta waa yar tahay qof iska yani beriyeelka Islam waa yar tahay qof dhihi kara maanta aniga qof islaam ma dilin ama kama dhiijin waa yar tahay dad wada dambiilayaal xukunka waxaa noo hawa wada dambiilayaal waxaan dooran doona wada dambiilayaal kan noo xigo dadka waa wada dambiile adeerkan waa qabqablayaal xagga u socnaa ma gashay marka meela u soconna ma garanayna marka almiina haddii la deen waayo dilkii ha la yareeyo almiina waxaa naga yareeya dilka naga yareeya annaga inaa isdilna ma ahan marka ereyga aan ka xumada waxay tahay intaan ku dilo yaa diyadaadina $1 u soo aadaysaa wayna dhacdaayo diyadu way qaybsanayaan qabiilku kaasaa waxaa lagu leeyahay haye intaasa kuu soo aaday reer hebel intaasa kusoo aaday ninkii culeys ma dareemooyo culeys uu dareemooyo ma lahan wuu iska faraxsan yahay xitaa lama xirooyo xitaa uban yar xabsi looma taxaawaayo still haddana habi waa haddana waa faraxsan yahay ninkaas marka mukuru tahay inuu maxay ahaydey uu mar labaad wax sameynayo of course uu sameynayo because of kii hore lama xanuujin had Ethiopia oo kale dilka aad uu uga adag yahay because of ninka amxaarka hadduu wax dilo diyada asaa bixinayo waka asaga bisa bixinayo reerkiisa lama bixinayaan waka saawa marka inuu wax dilo waa ku agta marka Ethiopia ujeed wax dila waa un dowladda bas waka shacab wax ma dila laakiin Soomaaliya ku bimadu waa dila isdilay kaas hal $1 hadhow u soo aada diyadiisa $1 bixiya ilaahay dilka ha naga qaboojiyo ilaahay dhaxdeena wanaag ha dhex dhigo ilaahay hana mideeyo dhalinyaro idinkan aqoontu ha idin badasho qofka walaalka nafta u qoonsan waxaan waa adduunyo waan idin salaamayaa salaamaa min kulli aafa